hooyooyinka dhalinyarada ku dhaqan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa qayladaan u diray xukuumadda Somaliland iyo salaadiinta inay sida ugu dhaqsiyaha badan wax uga qabtaan dhalinyaradan reer Burco ee tahriibaysa isla markaana ku leenaya badda u dhaxaysa Talyaaniga iyo dalka Liibiya. Faafahinta warkaasi waxa magaalada Burco inooga soo dirtay wariyahayaga Barwaaqo Aadan Maxamed. kacaayaha qaltaaga wadamada aanay u dhalan waa waxyaabaha ragaadiye bulshada Soomaalida kalifayna inay ku biimeeyaan nafahooda kuna dabar go'aan xeebaha shisheeye taasi oo ay ka raadinayaan nolol dhaanta tan ay ku nool yihiin balse kalama kulmaan waxyaabihii ay filanayeen isla markaasina ay uga soo haajireen wadankoodii ay qiimaha ku lahaayeen waxaanay kala kulmaan tacadi iyo tiirayaad u badan maxaa yeelay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala qowma bedelo ilaa ay isbedelaan mooyaane garashadii wadankoodii aanay cidi celinayn waxa ay ku bedesheen dhuumaalaysi takoorana la badin inay tuugsadaan gaalada oo ah waxa ay guusha u haleeli waayeen abwaan galeyd oo dareenkiisa ku cabiray aafada tahriibka ayaa waxa uu yiri adamuhu talaabiyo cirku taala dhigaya idukuna talaa iyo qabiilka ma tisqaadaan tahriibba ku marateen qurun ku taanteen tiisimaadka noloshiya hadda taladii seegteen hayay kuwooda madha kuma cimri waxa ay ku dayanayaan midhmidhka waxyeelada gaadha ee u dhaanta geeridu kadibna taararka la iskaga xidho iyadoo looga cabsi qabo inay xanuuna ku fidiyaan hase ahaatee dhaldhalaalkan beenta iyo daba orodka gaalada waxa kaliya ee lagaga bixi karaa tala saarasho Ilaahay iyo toobadkeen alle oo lala yimaado waayo alle cidda tala saarata waa uu ku filan yahay iyadoo aan laga dhamaanahayn iyo jabkiya naxdinta ee aafada taariibku ku reebtay dadka danyarta ee degan mandaqadan geeska Afrika baaxa si baan looga dareemayaa aafada taariibka guud ahaanba gobolada dalkani Somaliland gaar ahaan gobolka Togdheer taasoo sanadihii ugu dambeeyay ay u qulqulayaan wadamada reer galbeedka dhalinyaradii amaba u bixi dalka kuwaasoo intii badnayd nafahoodii ku waayeen badweynta u dhaxaysa wadamada Talyaaniga iyo Liibiya arrintan oo qiira xambaarsan ayaa waxa ay si dhab ah u taabanaysaa hooyooyinka ay ubadkoodii ka tahriibeen waxaanu saaka oo arrintani aanu kuurgalnay aanu la kulannay qaar ka mid ah hooyooyinkii ubadkooda ay tahriibeen oo ka mid ah hooyooyinka ku dhaqan magaaladani Burco ee xarunta gobolka Togdheer kuwaasoo ilaa haatan aanay haynin raq iyo ruux meel ay dhigeen ubadkoodu iyagoo ku tilmaamay guuldarro shabakadaha loo samaystay magafa iyo maqada ee ku midoobay barakac inay ku ridaan dhalinyarada gobolkani Togdheer xukuumadana baaq u diray in ay arrintani hoos u eegaan oo ah hooyooyinka magaalada Burco waxaan dadka ka codsanayaa dadkan tahriibaya dhalinyarada tahriibaysa inay hay'adda tahriibta joojiyaan aniga waxay ka tahriibay laba caruura inan iyo hooyadii bay ka tahriibay mana hayo meel la meel geeriyo nala joogan markay ka bixeen Liibiya doonta raaceen ayaa ugu dambeysay maxay tahay meel ay marayaan iyo waxa dhalayaba markaas waxaan doonayaa ka codsanayaa dadka geesta kalena maraanu la kulanay qaar ka mid ah dhalinyarada gobolka Togdheer oo ah dhalinyaro iskood isku xilqaamay sidii ay ula dagaalami lahaayeen tahriibta ayaa waxa ay ugu baaqeen salaadiinta waxgaradka iyo xukuumadda Somaliland inay xil iska saarto sidii ay u joojin lahaayeen taafada tahriibka waxaan leeyahay walaal misaarkiiseen dhalinyaro in inaga qasaartay badaha walaal misaarkiisay in si falxuma ugu dhibatay badaha inta u dhaxaysa Liibiya iyo Talyaaniga misaarkiisay in ku rafaaday oo runtii ku jaanaftay runtii ku balanbaltay oo ku silicday xuduudaha u dhaxeeya dawladda Itoobiya iyo Suudaan runtii waxaan leeyahay walaal waxaas waa dhibaato waxaasna wax maanta inaga inoo wanaagsan maaha anagu ka dhalinyarahan waan si weyn baan uga damqanaynaa si weyn baan u jecelahay in maanta badbaadaan maadaama nahay urdunkii dalka uu hogaaminayo madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo dadkan iyada ka mas'uula ma aha kaliya in lagu soo celceliyo la yiraahdo dadka xukuumaddu wax u qabato waxa ka qabato laakiin maanta waynu gacanta isu qabsanaa salaadiin cuqaal waxgarad iyo cid kasta oo maanta dareemi karta oo ka nixi karta in maanta wax loo qaban karo dhalinyarada awar waxaan ka salaamay ugu horeyn TV-ga Somali Channel oo TV aad iyo aad u wanaagsan oo aan aad ula socono ugu dambeyn waxaan leeyahay halka waxaan aad uga xumahay doontii maalintii dhaweysay ku qarqaantay badda Liibiya oo dhalinyaradii reer Somaliland ama u badnaatay reer Burco ayaan aad uga xunahay oo waxa looga naxo in dhalinyaradii reer Somaliland ee urdinka ahaa ay maanta soo kacaysay inay badaha isku dhamaato
waxaan aad uga xumahay oo aan aad u xumahay in xukuumaddii iyo shacabkii iyo wuxuuba intay gacmaha isqabsadaan arrinkan aad looga xumaado oo wax laga qabto gaar ahaan shaqaalaha Somali Channel waxa weeye waxaan halkan kaga hadlayaa ama ka dhiibanayaa arahdayda waxyaabahan dhacaya ay u badan tahay tahriibta waxa weeye tahriibtu qof kasta oo reer Soomaaliland ama maskaxley uu arkaa sayno naafaysay in shirkada la inoo furtay magafa iyo maqal la yiraahdo oo waxa weeye intay halka ka qaado dadka على قف حكومة أنت أصلا كن $1 وحوي لعكتها سنة هذه ما أنت وحوي دلك اللي جميل لها أما جناح البوس من لها دلك وحوي هرومر لها دلك وحوي برنامج كان قصة بصن وعي قلنتها أفضل تهريبته وبرنامج مهمة وحنوم هالعلنا يا TV كصومالي channel برنامج كاس إما كوها ولا نسير لنا وعي قلنا لها دنيا ووعي قلنا لها تهريبته كله ويكون هاتي Somali Channel أنت هادان وقصي قدبو مهد عندها Somali Channel نسينا يو وحلاي دلنيرة فدان تهريبتو كل جودهان جيجا Somali ده ويكون بدن تجارهان Somaliland سيبا واحد مدة مقالة برعاق قبل كتقولين آدو أفيسي قرن ما يوم وشدة كوشتا يكون بدي سيد دلنيرة قبل كتقولين فدان تهريبتها لكن وحنو شيء لها حكومة Somaliland حزب كستا أما حكومة كستا ما كاي جلسوا رعاها الدورشة وحي دلنيرة وشيكتها إن وحوي نقبل دونتو دلنيرة قبل كتقدر لكن أرن كاسي وأرن ما كده مبينه وما حبك si kastaba ha ahaatee ilaa hadda waxaan la ogeyn xilliga la soo gabagabayn doono dhibaatada tahriibka waa Barwaaqo Aadan Maxamed telefishinka caalamiga Somali Channel magaalada Burco.